waxaan baraarujinayaa oo muhiim ah dad waxaa jira udxiyada qandaraasiyo soo qaata hay-ado iyo kambaniyaal ka soo qaata xoolo inay qalaan lo'da aad bay u badan tahay weliba turkida oo kale ayaa keena xoolaha ariga sidoo kale dad bay siiyaan dadkaasaa qala laba ceeb baa halkaa ka timaada ceebta koowaad waxay tahay inta badan xoolo aan udxiyadii geli karin oo ayagu aad u liitaa ayaa la dooranayaa iyadoo faa'iidadaas waxa weeyaan laga helayo la ilaashanayo qofkaasi waa khaa'in wuxuu cunahayaana wa aklu amwaali nnaasi bilbaatil dadka xoolahoodiiba baatil ku cunaya ilaahayna aakhira waa weydiinaya mana barakoobayso waxa uu raadinaya wax barakoobaya ma ah dabaqyo kasta uu ku dhiso halaaga iyo dhibaatada asaga ku dambaynaysa waa ku hoogoba'aya ha laga digtoonaado xoolahaas dadka loo iibinayo oo wakiilka loo yahay in laga dhex faa'iido laga dhex raadiyo la shaxaado ayagiina hadhowta ay noqdaan kuwa aan sax ahayn arrinka labaadi waxa weeye aad u badan dhacdana mar walba xoolihii inta la qalo markii la birbireeyo qoladaan ay duubtaan oo kaamarooyinkoodii iyo sawirrada ay rabaan ay ka qaadaan ayaa inta la baceeyo oo la diyaariyo ayaa suuqa lagu iibsanaya oo lagu gadaya wayna dhacdaa dadkii ogaa goobjoogga ahaa ayaana in badan ii soo guuriyey ta hilibkii la baceeyo oo la diyaariyo ayaa isagoo raqiis ah suuqa lagu iibinaya mar labaad bay waxay ka sii raadinayaan dadkaas waxooda inay faa'iido ka sii qaadaan taasina waa dulmi iyo xaaraam aan loo aabba yeelin weeye waa in ilaahay looga baqaa subxaanahu wa tacaala dadka ammaanada loo dhiibay oo dad ay aamineen hal neefba ha kugu aamino sidaa kuwa adigu aad leedahay uga fakaraysid si ka weyn ammaanada iskaga ilaali waxaa bulshadu ay ku baaba'een wax badan amraad iyo cudurro amni darro dhibaatooyin kala duwan waxaa ka mida waxa isbaabaha keenaya khiyaanada noocaas ah ee wixii la mid ayaa keenaya ama ha qaadin ammaanadaas ama haddaa qaadid ilaahay uga cabso walow shilinba aadan ka helin waxba aadan ka helinbaba inay ammaanadaasi sida ay tahay ay ku dhaafto ku xisaabta ilaahayna uga baq subxaana wa tacaala xoolahaas masaakiintaa iska leh masaakiintaa ka iibina si dadkii lahaa weeyaan